Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaantiin waa idin salaamaya meel kastoo dunida guudkeeda kaga nooshihiin. Maanta waxaan idinka soo gudbinayaa qisadan wadanka Kuwait. Taariikhdu waxa weeyaan 2018 bishii lixaad labadeedii, waana waqtigii qadiyadan ama sheekadan ama qisadan la xaliyay weeyaan. Waxay ka dhacday xaafad kamid ah xaafadaha wadankaas uu ka kooban yahay. Xaafadaas waxaa lagu magacaabaa Xawali. Waxayna ku dhacaysaa qisadani qoys ama family Lubnaaniyiin ah. Marka qoyskani Lubnaan bay kasoo guurayaan iyagoo raba inay nolol u raadsadaan wadanka Kuwait. Intaynaan qisada bilaabin waxaan rajeynayaa inaad dhankiina muuqaalka soo qurxin doontiin. Hadday like tahay, hadday subscribe tahay, hadday comment iyo wax kastoo la taaban karaba ay tahay inaad dhankiina kasoo taabataan. Waayo lacag maaha, amarna maaha, waa codsi insha Allah. Qisada aan guda galo. Sidan hore usoo sheegnay, qisadan waxaa la soo tabiyay 2018 bishii lixaad labadeedii. Markii ay qisadani dhacaysana waxaynu joognay 2015. 2015 qoys Lubnaan ku dhaqnaa oo Lubnaan degnaa oo ka koobnaa hooyo, aabbo iyo laba awlaada oo hooyada la dhihi jiray Muna, aabahana Naadir. Labada caruur ay dhaleen intaasay ka koobnaayeen. Go'aan waxay ku gaadheen inay nolosha ay Lubnaan ku haystaan nolol ka wanaagsan ay u raadsadaan wadanka Kuwait oo ay ka guuraan Lubnaan. Go'aankii ay markaas qaateen oo ahaa inay deen nolol fiican oo dhan kasta ka dhisan wadanka ay u raadsadaan u hirgalay. Waxayna yimaadeen ugu dambeyntii wadanka Lubnaan oo ay u soo haajireen. wadanka Kuwait oo ay soo haajireen. Markii wadanka Kuwait imaadeen waxay guri ka kareysteen nin Kuwaiti ah. Marka guriga ay kareysteen wuxuu ahaa guryahan apartmentiyada ah ee saddex qol isku xidhan ah ay kareysteen ama laba qol isku xidhan. Markay wadankii degeen ee si fiican nolosha ugu kala kacday, markaa ninku wuxuu watay mashruuc gaar ah isagu watay mashruuciisii buu ka hirgeliyay wadanka. dadna mashruuciisii baa u shaqeeyay. saas bay nolosha ugu kala kacday. waxay iskaga noolaayeen nolol miisaaliya. dadka inta badan ay odhan jireen maasha Allah, dee nolol fiican bay ku jiraan. iyaguna may ahayn dadka inta badan dariska iyo dadka ku hareereysan iyo dadka deegaanka degan yihiin dadka ku taxalluqa ama dhex kala may ahayn. waxay dad dantooda watay ahaayeen. way bixi jireen habeenkii, way soo noqon jireen, safaray geli jireen, noloshooda socod bay iskaga badnayd. inta badanna waa dad iska dhalinyaro bay iska ahaayeen. gabadha waxay iska ahayd 37, ninku 40 buu ahaa. dadku inta badan inkastoo dad waaweyn yihiin laakiin da'ahaas oo kale waxay ku sheegaan inay dhalinyaro yihiin, fahanteen. markaas markii ay noloshu saas ugu socotay gurigii iska deganaayeen muddo ay wadankii la qabsadeen ayaa maalintii dambe gabadhii Muna ahayd waxay la timiday codsi. ninkeeda waxay ka codsatay inuu u keeno gabadh shaqaale ah oo guriga ama jaariyad bas aan garanaysid oo guriga ka caawisa caruurta iyo waxaas habeenkii hadday baxayaan oo kale iyo waxyaabahaas oo kale. haye buu dhahay. ninkii uu baxay waxaa jira markaa xafiis loogu talagalay in la qoro dadka shaqaalaha shaqada doonaya in guryaha ka shaqeeyaan oo laga diiwaan geliyo. qofkii deedna hadhow toola imaantay qof shaqaalaha doonaya nabarka waa la isla xidhiidhaya, waa la isku imaanaya, interview baa la wada gelaya, waa la sheekaysanaya, kadib haddii la isku qanco waa la israacaya. deedna saas qofkii gurigaas ama qofkaas shaqaale ugu noqonaya. xafiiskaas uu aaday. dan waxaa lagu soo xiray gabadh Filibiiniyad ah. Filibiin bay u dhalatay. gabadhu waa 29 jir. magaceedana Joanna la dhahaa. waa sheekadan gabadha ay khusayso weeyaan. Joanna markii ay gurigii timaaday waxaa lagu heshiiyay markaa inay waqti gaara ama saacado gaara intay u shaqeyso ay iska baxdo markaas. markii ay sidaa muddo ku shaqeynaysay ayaa waxaa dhacday maalintii dambe gabadhii Muna ahayd waxaaba iska soo jartayba ama waxaaba go'aansatayba inay gabadhii Joanna ahayd la joogto oo full time ay u shaqeyso. ay u soo guurtay guriga qayb ka degto, lacagtana ay u kordhinayaan, cuntadeeda halkan ku leedahay, qof dareerkii ka tirsan ay noqoto laakiin dee gurigii iyo hawshii guriga iyo waxyaabahaas qabanayso halkaa iska degnaato. Joanna way ku faraxday maadaama dee guri kira iyo cunto ay meelaha ka iibsatay waxaas ay kaga raysanayso. gurigii bay soo degtay. gurigii bay gabadhii ka caawin jirtay. way la noolayd in muddo ah ilaa laga soo gaarayo 2017 bishii 11 laga soo gaarayo. maalintaasna waxay ahayd maalintii ugu dambeysay. qof kasta maalintaas waa la waayay. Joanna waa la waayay, Muna waa la waayay, Naadir waa la waayay, labadii awlaadaha. gurigii qof ma joogo. waxaana lagu ogaaday ninkii guriga kireeyay baa telefoonkoodii sidaasuu karadii shahriga u soo qaato. wuu soo wacay, cidna way ka qaban weyday. markaas gurigu yimiday, albaabku gargaraacay, cidna way la hadli weyday. kadib wuu iska baxay bishii u horeysay ee sheekadani dhacayso. bishii labaad haddana soo laabtay, telefoonkii lagama qabanaayo.
guriga cidna kama furayso muddo 4 biloodaba ninkii routiinkaas ku jiray inuu telefoonka soo waco ku soo celiyo cidna ka qaban weydo albaabka yimaado garaaco cidna ka furi weydo dabcan markaad guri qof ka karaysato qofka xuquuqda kugu leeyahay intaad gurigiisa jabsatid iskama geli kartid waa inaad haysatid amar maxkamadda ku ogolaanayso guriga inaad geshid oo aad baaran kartid adigu 4 bilood markay kasoo wareegeen ninkii go'aan wuxuu ku gaaray inuu booliiska ogeysiiyo booliiskii markuu u tagay hawshiisa marka isagu fikradiisa waxaa ka dhaadhacsan dadkani guriga ku jiraan way ka dhacayaan yani inay lacag ku siiyaan bayna rabin waxyaabo noocaas ah maskaxdiisa ku jira booliisku u tagay arrintii uu ka sheekeeyay booliisku waxyaabo ka muhiimsan waxaas wax iska raqiisada nin baa kiradii iga haysta 4 bilood waxda booliisku inta isku soo raacaan wax ka qaban karaan maaha waxyaabo kale oo ka muhiimsan bay iskaga mashquulsanaayeen waxay ku raadeen waxaad u baahan tahay inaad maxkamadda ka soo qaadatid warqad ku ogolaanaysa guriga in la galo warqadaasina waxay qaadanaysaa sanad iyo dheeraad ninkii wuxuu ku qasbanaaday markuu booliiska waxba uga qaban waayay hawshii warqadii iska sugo warqadii buu maxkamadda ka codsaday sanad iyo dheeraad buu ugu dambeyntii afka ka jaray sanadkii markuu sugay iyo welibana dheeraadkii la socday ma xasuusta wuxuu ahaa ugu dambeyntii warqadii maxkamadda soo baxday maanta warqadii maxkamaddu saa uu gacanta ugu dhigay booliis uma tagin meel ma tagine niman buu soo kaxaystay gurigii soo abaaray gurigii markuu yimid waxay damceen markaa inay iska furaan kaanama gurigii inuu hoosta ka xiran yahay camal way jabiyeen guriga way soo galeen nimankii gurigii bay baadhbaadheen waxba kama helin markaas iyagoo gurigii baadhbaadhaya ayuu ninkii wuxuu markiiba isha ku dhuftay jikadu galay wuxuu arkay qasaalad maaha talaagadii jikada ooleysay oo jikada ka baxsan oo bartaas yani meel daaradda hallway daaradda yani meeshan daaradda loogu talagalay dee fadhiguna yaalo meelahaas oo kale dhinac ka mida taala oo ka fog deedna wuu soo baxay talaagadii buu yimid markaas markuu talaagadii yimid daboolku ka qaaday talaagadu way shaqaynaysaa talaagadii markuu daboolka ka qaaday mise meyd baaba ku jiraba isagu meydkan ma garanay markiiba uu naxay talaagadii buu furay nimankii waa soo wada yaacay markiiba booliiska waa la wacay booliiskii baa meesha yimiday meydkii baa laga soo saaray talaagadii gurigii baa la baadhay meydkii waxaa loo geeyay markaa waxaa jira qaybta maaragtay forensic medicineka la dhahee baadhitaanada yacni qadaayaadka ama baadhitaanada dadka dembiyada sameeya meelaha lagu ogaado qof la dilay oo kale ayaa la geeyay dadna baadhitaan kadib markii la ogaaday waxaa la ogaaday qofka meydka inuu yahay Joanna gabadhii 29 jirka ahayd ee jaariyad ahayd inuu yahay qofka meydka ah markiiba waxaa loo dhaqaaqay baadhitaan labadii qof ee gurigan deganaa in la baadho Kuwait oo dhan waa la soo maray meelna waa laga soo waayay markii Kuwait saa loo soo dhameystiray waxaa laga fikiray maadaama ay labadooduba laba dhalasho kala haysteen midna Lubnaani ahaa ninka Lubnaani ahaa haddana markii hore idiin sheegin ninku Lubnaan buu kasoo jeeday gabadhoodna Suuriya kasoo jeeday laakiinse Lubnaan bay ku dhaqnaayeen halkaas qoyskoodu ahaa kadib waxaa labadoodii dhalasho ay kasoo kala jeedeen Lubnaan baa markii hore maadaama ay Lubnaan waddan kasoo galeen Lubnaan baa lagu horeeyay waxaa lala xiriiray baadhita qaybihii laamihii booliiska ee Lubnaan madaxdoodii baa lala xiriiray arrintii baa loo bandhigay laba dowladood camal baa loo wada hadlay waxaa laga codsaday in dadkaas loo soo raadiyo oo ay dambi Kuwait ka galeen Lubnaan oo dhan dadkii lugta la soo mariyay waxba waa laga soo waayay haddana dib baa Kuwait loogu soo laabtay Kuwait baa haddana waxay markii Lubnaan wax ka soo weyday cala duul waxay yani ay la xiriireen Suuriya markii gacanta la soo mariyay labadii dilaaba waa la soo helay markii la soo helay labadoodiiba markii la soo helay Kuwait waxay dalbatay inaa dadka dambiilayaasha ayaga lagu soo wareejiyo oo iyagu ka qaataan yani ay iyagu talaabadii ka qaadeen ay ka qaadaan laakiin waxaa jira sharci inta badan wadamadu ay ku kala duwan yihiin oo qofka imika Kuwait markuu joogo ama Kuwait ha ahaado ama yani dambi ka galo jinsiyad kale ha haysto laakiinse marka wadanka lagu qabto ee dambigiina ku cadaado qofka waa la daldalayaa yani qofka nafsu binafsi weeyaan waa loo dilayaa laakiinse Suuriya sharcigaas kama shaqeeyo Lubnaanna sharcigaas kama shaqeeyo marka Suuriya si aanay Lubnaan siyaasad ahaan isku khilaafin Kuwaitna siyaasad ahaan isku khilaafin waxay go'aansadeen way diideen horta arrintii ay Kuwait u soo bandhigtay ninkii way qaadeen waxay u dhoofiyeen wadankiisii baa gacanta laga geliyay wadankiisii baa go'aanka ka gaarsan idin taala muna wadankeedii bay ku hadhay oo Suuriya ah muna sheekadeeda lama soo sheegin meel la geeyay iyo si loo galay iyo talaabo laga qaaday midna ma maqal laakiinse
lubnaan markii la geeyey naadir baaritaan baa loola dhaqaaqay wax kastana isagaa ka sheekeeyey siday wax u dhaceen baa la weydiiyey wuxuu yidhi gabadhaas juwaana ah ee guriga nooga shaqaynaysay aanu ma dilin laakiinse xaaska ayaa dishay buu yidhi sidii u dishayna waxay ahayd wuxuu yidhi mune waxay ahayd buu yidhi dadka inta badan qofka kale inay cadibaan oy dilaan oy dhibaateeyaan ama jismiyan ama maskaxiyan u dilaan ku raaxaysta deedna iyadoo ku dareemaysa inay ku raaxaysanayso ay maalin walba waxay jirto lu geysan jirtay muna muxuu ka ahaa isagu markhaati wax alla wuxuu ka yidhi ama de inuu ka qabtay ama inuu qofkii taageeray ama adiga yacni wuu la qabtay camal bay ka dhigantay mar haddaan qofkii af iyo adintoona waxba ku difaacaynin yacni raalli buu ka ahaa soo maha marka wuxuu yidhi saas bay markaa samayn jirtay gabadhii juwaana ahayd saasay markaa ku dhimatay waxay ku dhimatay buuri markaas maalin maalmaha ka mid ah jug ay madaxa kaga dhufatay darteeda ayay u dhimatay markay dhimatay aan aragnayna may tahayna talaagadaasaan ku ridnay annaguna wadankii waa iskaga soo baxsanay markaa wuxuu yidhi xataa waxaa la wareystay markaa hooyadii isaga oo wadanka lubnaan joogtay markii dee isaga lasoo qabtay ee taxqiiqa lagu sameynaya hooyadiina la wareystay waxay sheegtay ayadoo xataa mararka qaarkood mar ay booqatay Kuwait oo ay qoyskan booqatay awlaadeeda yaryare uu inankeedu dhalay iyo inankeeda dartii u tagtay waxay soo aragtay in gabadhaas muna ay dhibaateyn jirtay markasta gabadhaas markaas adiga Kuwait waa la xukumay wiilkii waxaa lagu xukumay adiga xabs mu'abad lagu xukumay maadaama gabadhiina dee wadankeedii qaateen gabadhii inta badan lama soo sheegin waxyaabihii ku dhacay iyo halka masiirkeeda ku dambeeyay lama sheegin gabadhii juwaana ahaydna waa la qaaday wadankeeda laga dejiyey familkeeda gacanta loo geliyay iyaga aastay markaas dowladda Philippine waxay go'aan ku gaadhay in dadkii Philippine u dhashay ee wadanka Kuwait joogay oo dhan inay ku dhahaan kasoo baxa wadankaas adiga dad badan baa ka baxay arinka kadib laakiin ugu dambeyntii markii la arkay in labadii dowladood cilaaqaadkoodu xumaanayaan waa la dejiyay wada hadal baa loo fadhiistay waxaana dadkii laga dhaadhiciyay dee reer Philippine ahaa dadkii dhibaatada geystay iyo wixii ku dhacay oo dhan inaanay ahayn dad Kuwait u dhashay dad dhalashooyin kale iyo wadamo kale kasoo jeeday inay ahaayeen iyaguna maanta markaa imika Kuwait ayaga waxaa lagaga xukumay icdaam baa lagu xukumay haddii mustaqbalka mar una yimaadaan wadankaas ama haddii ay iman lahaayeen inay mar walba la dili lahaa dadkaas oo gabadhan loo soo argudi lahaa dee yacni xaqeeda la siin lahaa laakiin dee lilaasaf ay noqdeen dad dowlado kale ay gacanta ku haystaan muwaadiniin ka yihiin dowlado kale markaa sheekadii markii dambe dadkii waa la iska daayay Filibiiniinta wadanka way iskaga noolaadeen sheekadiina intaasay ku dhamaatay gabadhii muna ahaydna bacdama ay waxaasoo dhan samaysay meel alla meel ku dambeysay lama yaqaano aad baa umahadsantihiin sheekada markii halkan la soo gaadhay waxaan rajeynayaa inaa muuqaalka dhankiina kasoo qurxin doontiin waxaan rajeynayaa inaa wax kastoo la taabto aad iska taataaban doontiin wuxun baa la iska taabtaabtaa markale aadna waad umahadsantihiin dhiirigelintu waa dhankiina sheekooyinkan haddaa jeclaataan oo like